waxaan ahay aasaasaha maamulaha maxadka qoyskaba academic oo ku yaala Hargeysa Somaliland oo ahna maxadka kaliyaata ee lagu barto arrimaha qoyska kaasoo ku yaala magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland maxaa looga baahan yahay soo gurigaas uu noqdo guri adag oo taagan waxay ugu qaaday markaan arkay dhibaatada mujtamaceena haysta waxaan barnaa hadii hableeyihiin sida nolosha guurka loo fahmo marka hore waa maxay guur muxuu guurku u qaybsamaa maxaad u guursanaysaa ujeedada u guursanaysaa waa maxay hadduu dhibaato timaado ama khilaaf yimaado sidee baa loo xalinayaa waxay ugu qaaday arrimaha qoyska ama iskuulka qoyska lagu baranayo guurka waxay ugu qaaday maadaama guurku leeyahay ahmiyad aad u weyn inaan bartaa waa muhiim bay noqotay kuwa gacanta waxa kamid ah cuntada waxa kamid ah qurxinta guryaha sida decorationka loo sameeyo ee guryaha loo qurxiyo jacaylka iyo xirnaashaha makiinaysa qasab si rag waad cuntada u jecel yihiin iyo qoyska wanaagsan iyo cuntada wanaagsan marka gabadha hadii cuntada hagaajisato ninkeedu ma naqaaya meelada imisaad maanta tobankii kooxda waxay wada maxaad ka shaqaysaa marka walaalo waxaan xalinaa ilaahay wuxuu noo qadaray khaasatan waxaan xalinaa arrimaha qoyska waxa kula soo hadlaysa hooyo waxa inta badan igu soo noqnoqda xagga khilaafaadka markaan xalinayno dumarka xagga dumarka haday noqoto ragooda inta badan kaga cawdaan gabadha kooranaysa ninka ima dareemayo yani ima keer garanayo iyo sidoo kale biilka waxyaabaha aad uga cawdaan biilka qoyska ma bixinayo biilka qoyska ma bixinayo xagga dumarka waxaan rabaa wallahi fiican in aad u wanaagsan diinta ku wanaagsan dhaqanka ku wanaagsan akhlaaqda ku wanaagsan jacaylka wax ka yaqaan